25 bishii 12aad 2019 waxaan halkaan isugu nimid mudaharaadka ah wiilasheena Soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku kala xiran gaar ahaan wiilasha Cumaan ku xiran oo lagu xukumay 26 sano kuwaas oo ku dhibaataysan xabsiyada ay ku jiraan waxaan codsi balaaran u direynaa dawladda Soomaaliya dawladda Galmudug iyo dhammaan dadweynaha dadka dibadda jira dawladda Puntland dhammaan waxaan codsi balaaran u direynaa haddana shacabka reer Galmudug in iyo kuwa reer Puntland in wiilasha Soomaaliyeed ku dhibaataysan xabsiyada adduunka gaar ahaan kuwa Cumaan ku dhibaataysan maxaan ku jirdilka iyo dhibaatada ku haystaan shanna ka dhimatay 25 sano lagu xukumay aan ahayn wax loo dul qaadan karo waxaan codsi balaaran u soo jeedinaynaa oo kalluumaysatada wadankooda ka shaqaysanayay waxaan codsi balaaran u soo jeedinaynaa dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wadanka iyaga mas'uulka ah in ay noo soo daayaan baaqiyo badan bay direen sida aan la socono halkan waxa ku cabanaya waalidiintii dadkaas iyo ilmihii ay dhaleen iyo anaga dadkii ehelka ee ka soo jeeday Puntland iyo Galmudug haweenkii Soomaaliyeed iyo maxaan ku dhahay hooyooyinkii dhalay waxaan codsi balaaran u dirsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha in ay si degdeg ah arintaas u dhaxgalaan inay soo daayaan ayaga warkoodu soconaya waxaan uga fadhinaa in ay soo sii daayaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waana mahadsantihiin in badan oo wiilal xiran ah oo adduunka daadsan oo aad soo sii daysayna waa idinkaga mahad celinaynaa haddana waxaan rabnaa haddaan nahay shicibka reer Puntland iyo shicibka reer Galmudug in ay noo soo sii daayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu codsi balaaran ayaan u jeedinaynaa waxaan rabnaa si degdeg ah inaan uga helno jawaab waana ku mahadsantihiin sida sharafta leh shaqada u wadaan mahadsanid waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya anigoo ah dawladda Soomaaliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre anigoo ah xaaska Cabdikariin Siciid Maxamed wiil baan u dhalay uurkiis baan lahaa markii la xiray kalluumaysato aabadu ka shaqayn jiray wiilkayga wali maarag ayadoo niyad jabi waa wiilkayga inuu yiraahdo aabba malihi ma wacal baanahay hooyo aabbahay aaway ma ay tutada aabba leeyahay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha in la ii soo daayo sida ugu dhaqsiyaa badan wiilasha Soomaaliya la dhibaataysan sidoo kale ayagana sidoo kale codsanaya waxaan madaxweynaha waa ku celcelinaya Maxamed Cabdullaahi ku celcelinaya inay noo soo daayaan hooyo Soomaaliyeed oo ku dhiban baahay wiilkaas yarka oo hooyada u tahay intoo kale soo ila mid gabdhaha anoo kale taa asaas kale nimankoodu xiran yihiin waa ila mid saasaan codsanaya madaxweynaha ka codsanaya mar labaad ka codsanaya mar saddexaad ka codsanaya mar afraad ka codsanaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa salaamaya waxaan nahay shacabkii Puntland iyo shacabkii Galmudug waxaan u codsanaynaa wiilasha ku xiran Cumaan oo 25 sano ku xiran lagu xukumay oo 10 sano ku jiray oo kalluumaysatada oo xaq darrada lagu xiray oo madaxa laga garaacayo waxaanu doonaynaa si degdeg madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre si degdeg ah inoogu soo daayaan walaalihiis iyo hooyooyinkiis oo dhiban baan u nahay waxaanu doonaynaa dhalinta Soomaaliyeed oo dhibaataysan inay soo daayaan oo madaxa laga garaacayo oo halka ku silicsan oo qaar ku dhintay oo qaar ku jiran yahay oo aan awoodi karin inay daawo qaataaniin oo awoodi karin inay wax qabsadaaniin waxaanu codsanaynaa si degdeg ah in loo soo daayo si degdeg ah in loo soo daayo hooyadii 10 sano saaran tahay sariir wiilasha qaar baa 10 sano sariir saaran hooyooyinkood oo naxdin la suuxay waxaanu doonaynaa waxaanu si degdeg u codsanaynaa dawladda Soomaaliya inay noo dadaasho oo hadalka iyaga qiimeynayso oo qadariso oo kuwii hore say noogu soo daysay baan uga mahad celinaynaa inay noo soo dayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo kaliya laab uga codsanaynaa haddaan nahay dawladdii Soomaaliya oo dhibaataysan oo isku jirta Galmudug iyo Puntland waa inay noo kacaan oo noo dhiidhiyaan oo meesa damiir lahayn madaxweyne uu noo kac Maxamed Farmaajo uu noo kac Cali Khayre uu noo kac hana loo kaco fadhiga ka kaca dhalintu waa dhalintiini waa kuwii habka qaadan lahayd waa kuwii dalkooda daafici lahaa hooyooyinkood waa suxsan yihiin caruurtooda xukunka aabaa wiilashaas wadankooda laga qabsaday ayagoo masaakiina oo kalluumaysanaya oo xoogsanaya laga qabsaday oo ay cadawgu madaxa ka garaacayo oo aan qadayn oo aan quraacan oo dhibaataysan oo xorriyo meel u mari karin oo silicsan oo Cumaanku ay iska haystaan sidii la haystihii
baanu ka dhidhiyaynaa oo ka ooyaynaa oo ka gubanaynaa oo jiirkuna danqanaya oo ma aamusi karno oo meelaan fadhisanno ma naqaan oo ma harsanno oo ma hoyanno oo saasay raggii noo agdhooban yihiin oo carruurtii noo agdhooban yihiin oo dadkii noo agdhooban yihiin ilmahoodii baa naga agwiile ma adkaysan karno naloo soo daayo si degdega horay baan u hadalna oo haddaan hadlaynaa oo mar walbaan hadlaynaa oo aamusi mayno intii nafti nagu jirta waa harjadaynaa madaxweynew noo kac maanta waxaan kaa rabnaa hiil iyo hoobaan kaaga baahanna inaad noo kacdid baan rabnaa xasan cali khayrow adna ha harin iskaashada haddaa iskaashataan waxbaad qabanaysaan waad dhiidhiyaysaan dhiiggu haydi kaco waa raggiinnii waa wiilashiinnii waa awlaaddiinnoo kale meesha ka kaca fadhi ma yaallo maantoo kale meel la fadhiista lama yaqaan saaka wayna soo wicen ayagoo ooyaya annaguna waa iska ooyaynaa waxaan qabsan karna ma garanayno ilaahayow noo hiilli adaa hiil leh maanta ilaahayow noo hiilli madaxweynahow noo kac meel kasta nooga kaca ha naloo kaco dadkii soomaaliyeed baana waan dhibaataysanna inay noo dhiidhiyaan inay noo kacaan inay noo istaagaan madaxweynayaasha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay noo kacaan inay noo dhiidhiyaan galmudug iyo buntland waa dhanta maanta waa baro ilma adeerayaalow fadhi ka kac meeshaan war ma yaala hadal ma yaal ruuxu waa naga dhammaada maalin walba waa taaganna meesha ka kac soomaalida ka kaca meesha wiilashaas meesha waa ku ciirsan yihiin wiilashaas meesha waa ku dhinteen wiilasheeda soomaaliyada meesha ku xirxiran madaxweynaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo farmaajo meesha ka kac fadhi ma yaal meesha ka kaca assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan nahay hooyooyin soomaaliyeed dhibaataysan waxaan rabnaa wiilasheenna soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka Cumaan oo maalin bacad laga jarayo in naloo soo daayo inay xorriyaddooda dib noogu helaan anigoo ah maxbuus qaliif daahir cali dheere oo loo yaqaan Saalax Wiito walaashiis anigoo ah waxaan u baahanahay walaalaheena naloo soo daayo ilaa inta kale la xiran waxaan rabnaa walaalaheena Soomaaliyeed in xorriyaddooda noo helaan waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaha badan la kugu soo daayo hooyadiis qaracanka ay qaracantay ilaa hadda sariir la taala wuxuu ku xiran yahay 12 sano waxa lagu xukumay 26 sano ma u dul qaadan karaan way dhibaataysan yihiin shan ayaga kamid way u dhinteen dandarro iyo silac daawo looma ogola inay dhakhtar tagaan dalkooda looma ogola inay xorriyad u helaan caafimaad ma helayaan xorriyad ma helayaan waxaan rabnaa in dawladda Soomaaliyeed ay hogaamiyaan mudane madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan ka codsanaynaa inay nooga dhiidhiyaan inay noo istaagaan inay wiilasheena Soomaaliyeed oo dhibaatada haysata ku dhintaan daraysan dalka Cumaan inay wax nooga qabtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaala waxaan doonaynaa oo intaanaan isugu nimid oo haddaan ummadda Soomaaliyeedna u dhiidhinaynaa oo galmudug nahay oo buntland nahay oo ummadda Soomaaliyeed nahay wiilasha xiran oo ku dhibaataysan Cumaan oo ku xirnaa 11 sano oo barkood baaba'een oo ku dhibaataysan ayaan rabnaa inaan maxay noo soo wareejin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhiidhiso oo u kacdo oo dhiigga si fiican maxay tahay ii sheegay si fiican isku dhiirigeliyaan aniga ah khaliif daahir cali xaaskiisi shan wiil baan dhalay waa dhibaataysanahay waxa qaylada keenaya ina maxay tahay ii sheeg wiilkaas oo shan wiil u dhalay oo intaan sugayay oo meeshaan ku dhibaataysanahay oo ilmihii waxa bahdaas aqooni oo maxay tahay ii sheeg ay ku dhibaataysan yihiin dalka Soomaaliya ayaguna dibadda ku xiran yihiin in la soo daayo oo loo dhiidhiyo oo loo wada kaco ummadda Soomaaliyeed ayaan ka codsanaynaa oo wadankooda hooyo loo soo wareejiyo oo wadanka shisheeye laga soo carabta laga soo wareejiyo oo wadankooda loo soo wareejiyo dawladda Soomaaliya soo wareejiyo baan ka codsanaynaa hallahayo wiil aheedo ahay oo walaalkay ka tagay oo madi ah Cabdikariin waa wiil madi ah hal wiil buu asna ka tagay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha reer wasaaraha inay wiilasheenaas noogu caaqibeeyaan ayagoo kaligiis u soo dhibaataysan wiilal Soomaaliyeed la dhibaataysan yihiin oo la baaba'san yihiin anigu ma aan dhahay fikradayda xabsi kale loo sii celsho dadkoodii iyo waalidiintoodii intaba waa baaba'san yihiin waxaan ka codsanayaa
dowladda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliya noogu soo wareejiso axsan haddii ay xarig muhurayaal yihiin meel aan ka booqan karno eheladooda iyo waalidiintooda intaba aan ku baraarujin karno iyo waxa ay dhaleen aan ka tusi karno in la kugu soo wareejiyo ilaahayna noo istaago dowladuna noo istaagto dadkuna noo istaago quraankuna noo istaago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كافية أحمد صلاة وحن كسعدا. أذكر صادق صلاة كلمية أو كحران عمان إن الرئيس دايان دولتك عدسنا يا مدحوين فرماجو. سان عود كوسو استعرض استويرش الصومالية إنه الناس دايما مدحوين فرماجو يحاسب على خيره. بان كعدسنا حسب على خيره يا فرماجو دولة الصومالية بالله يقل مدوك. وحن بنانك وصباح إن الرئيس داي صاحب حابيستنا يحرن. بان عدسنا فرماجة كعدسنا فرماجة عبد الله فرماجة وحن كعدسنا صومالية يقل مدوق يبلان وحن كعدسنا إن لو سداي مدحوين عبد الله إنه نو سداي محبيستنا يحرن بان عدسنا حقوقنا إن لو سداي أنت سنة يحرن أنت سنسوينا ولا بابا وسوينا وحن سوينا إن لو سداي مدحوين نو سداي مدحوين نو استاج مدحوين ياشين نو كعان رئيس الوزراء مدحوين عبد الله فرماجة مدحوين نو استاج مدحوينه إنه أذان كسوينا هذا كار وابحنا هذا ولوا بحينا أذان كسوينا إن نو استاج مدحوينه نو استاج. dhibaataysan oo booyahaya 12 habeenkii ma seexdaan 12 maatina ma seexdaan waa booyahayaanin jirdil iyo dhibaata lagu wadaa waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya xasan cali khayriya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo saan kuugu faraxnay nabadii nolol ina noogu dadaashid saan kuugu faraxnay ina noogu dadaashid ina noo istaagto dawladda Soomaaliya inta soo daysana waa kaaga madcelinayna inta kale noo soo daa si degdega oo shuruud la'aan noogu soo daa